haddaba xiriirka wanaagsan ee ka dhaxeeya lamaanayaasha iska doortay dunida astaamihiisa iyo sidii uu noqon lahaa mid sii waara waxaan kuu hayaa kuna soo gudbin doonaa 4 qodob haddii aad samayso xiriirkeena jacayl uu noqon doono mid jiri doono ilaa abida tan koowaad waxay tahay ku faraxsana waxyaabaha iskaga mid tihiin waxa laga yaabaa in midka kale waxa uu necban yahay midkiin ay farxadiisa tahay ugu taasi saameyn ayay ku yeelanaysaa xiriirkeena xilli walba waa inaad ka talisaan farxadiina si uu sii waaro xiriirkeena jacayl labo waa inaad iska ilaalisaan dagaalkii buuqa waxay keenayaa kala tegiina midkiin midka kale waa inuu u dulqaataa waayo dulqaadka wuxuu keenayaa in xiriirkiina uu wanaagsanaado isla markaana uu noqdo mid guuleysta saddex hadiiduhu ma xaliyaan dhibaatooyinka jira laakiin waa bilaa wanaagsan hadiidaha lamaanayaasha isku gudbiyaan waxay keenaysaa kalsooni iyo farxad aad u ballaaran afar oo ah tan ugu dambaysa xushmay waxyaabaha aad ku kala duwantihiin sidaasi darteed waa inaad ka talisaa xiriirkeena jacayl si uu u sii jiro ilaa abida waad ku mahadsan tahay daawashadaada waxaan kaa codsanaynaa inaad muuqaalkan la gariso sidoo kale u gudbisa asxaabtaada fikirkaagana qaybta hoose faallada nagu soo gudbi waxay noo tahay dhiirigelin aad weyn mahadsanidin magacuna waa Maaman Cabdilkariim